عاصمة هرقيسة maamulka dowladda hoose caasimada Hargeysa wakaalada biyaha iyo mas'uuliyiin ka socday shirkadda iyadoo qandaraaska ku qaadatay waxaana uu halkaasi ka hadlay isla markaasina sheegay in la soo dhaweeyo odayaasha iyo waxgaradka caasimada Hargeysa bulshadana ugu baaqay in meelaha ay marayaan beebdhigistaasi ay u fududeeyaan shirkadda qandaraaska qaadatay iyo wakaalada biyaha caasimada Hargeysa oo 130 kiiloomitir oo biyaha la gelinayaa beebka cidda laga doonayo inay hagaajiso wareer Hargeysa wareer Maroodi Jeex waa inaynu arrinka ku qaadanaa bil sharaf dad islaamay nahay halka islaamku ugu jilicsan yahay waa biyo ilaahay biyaan ka abuuray buuri biyo la'aan ay ku jirto maanta ilaahay baa mahadi ay tahay waxa jooga hadda aleema dawladda hoose dawladda dhexe dawladda baa joogta arinku meel fiican buu marayaa waxaanu leenahay mujtamaca ka wada qayb qaataan خضر يوسف علي oo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bidicda iyo xogayaha dowladda hoose caasimada Hargeysa mudane Ahmed Juha iyo duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteeko ayaa fariimo ku aadan beebdhigistaasi iyaguna u diray bulshada ku nool caasimada Hargeysa in si ay biyuhu soo gaaraan bulshada ku nool caasimada Hargeysa loo fududeeyo shirkadaasi isla markaasina waqtiga qandaraaska loo qabtay aanu dib uga dhicin waxa farxad weyn inoo ah in maanta caasimada degmo walba barkada laga sameeyo kaydadu noqon doona biyaha gaarsiin doona sidoo kale network biyaha lagu qaybin oo dhan u dhameystiri bulshada caasimada ku dhaqan wax looga baahan yahay horumar kastaba challenge-kiisu leeyahay sida ay odayaashu sheegeen imika survey-gan oo markii labaad ay company-gu ku eegayaan meelaha beebku marayo waxa jira meelo badan oo dadku ay degeen wax looga baahan yahay dadku markaa inay u hoggaansamaan awaamirta dawladda ka soo baxaysa oo intaan talaabo sharci laga qaadan iyagu ay si baneeyaan halkan maanta hal qodob baynu ka wada hadlaynaa sidoo ballan qaaday madaxweynaha maanta dalka Isa Muuse Biixi Cabdi biyo ballaarinta Hargeysa waxay ku jirtay ballan qaadada xisbiga kulmiye lambar 1 Hargeysa biyo doonaysa waxa waajib leenoogu leeyahay halkay sandaqada taalo iyo halku deeriyaalo iyo halkay shingada taalo mid walba inaynu sii banayno oo aanaynu hay'adaha amniga iyo dawladda midna dhibin boqolkiiba dadka waxa ku jira 10 amba wax ka yagoo dhiba mashruuc kasta amba hawl kasto la qabanayo waxaan leeyahay qofka bini'aadmiga hoostaaga talaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doona inteena kala wanaagsan iyadoo gacmaha haysato ninka bulaacad ka qotay wadada dhexdeeda iyo ninka deeg ka dhistay iyo ninka sandaqadu u taalo midna biyaha kiisa u istaagi maayaan waxa weey dhulka ay u baahato biyaha looga baahdo tawaangidana dhul bedelkoogii baa la siinaya sharcigu dhul kasto uu u baahdo qaranku waxa weey isaga la qaranku Mariyaha wakaalada biyaha caasimada Hargeysa ayaa isaguna halkaasi ka hadlay ku jiray marxaladii hore sahaminta dhulkii uu beebku marayay iyo dhulalkii laga qodayay maxaan kaydadka cusub oo degmooyin kala duwan ee magaalada in la hubiyo in dhulkii wax iska bedeleen oo meelihii dariiqadii loogu talagalay baabka in la mariyo inay xidhmaan inay sidoodu yihiin waxay soconaysaa waa 3 sano oo ka soo bilaabantay maalintii contract la bixiyo ahayd 30kii bisha 10aad 2018 hawsha biyuuna hawl fudud maaha hawl hadal ku hirgelaysa ma waa hawl shaqo badan u baahan